مسؤولينta shirkadaha ka shaqeeya duulimaadyada ayaa soo dhaweeyay qorshaha ay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kula soo wareegtay maamulka arrimaha xujayda iyo cimrada kadib kulan ay maanta ku yeesheen magaalada tan Muqdisho. xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Ibbi oo ka hadlay kulanka ay soo qabanqaabiyeen mas'uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ayaa ku amaanay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya dadaalka ay ku bixiyeen dib u soo wareegidda maamulka arrimaha xujayda 27 sano kadib. wasaaradda awqaafta iyo diinta oo runtii ku guuleysatay in ay la soo noqoto 27 sano kadib inay la soo noqoto dib u la soo noqoto bicsadii xajka iyo cumrada oo gacanta dawladda Soomaaliya dib loogu soo celiyo waa runtii wax lagu faano waaye arrimaha xajka in shacbiga Soomaaliyeed iyo dadka runtii loogu yeero Dayuuf Raxmaan waa martida Allah subhanahu wa ta'ala martida ilaahna waa garan kartaa qiimaha iyo qadarinta iyo sumcadda ay ku leeyeen ilaahay agtiisa ay ku leeyeen mar haddii martida ilaahay subhanahu wa ta'ala loo galay dagaal in maanta la soo dhaweeyo laguna soo dhaweeyo dhibkii iyo rafaadkii iyo waxyaabihii ka haysan jiray arrimaha xajka Soomaalidu kulligaana aad u naqaano in mataqaanaa la ururiyo oo sanadkan laga dhigo sanadkii koowaad ay dawladdu iyadu gacanta ku qabato ay maareyso una qaybiso shirkado xamlaad u qaybiso xamlaadkaas oo runtii la rabo inay shacbiga u gargaaraan. sidoo kale xildhibaan Cabdicasiis Dhagaqool oo isna ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay in shirkadaha diyaaradaha ay ayideen qorshaha wasaaradda ay ku maamulayso arrimaha xujayda isagoo xusay in wada shaqaynta wasaaradda iyo shirkadaha diyaaradaha ay xujayda u fududeynayso gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan.